nabadda wadayaal ku soo dhawaada qaybtii koobaad ee sheekada xiisaha badan ee la magac baxday agoon iyo aana qabiil waxaan idiin daadihi doona anigoo ah Said Anteeno. Cabdille isagoo aqaan gaarin ayuu dhintay aabihiis. waxa uu xasuustaa sidii shalay oo kale markii la yiri aabaha waxa loo dilay aana qabiil. waxay ahayd maalin jawi uu degan yahay, cirkana ay ka muuqato sansaan roobeed. sidii caadadu ahaydba Cabdille waxa uu u kalahay dugsiga si uu uga soo baxo quraanka. markuu barqadii soo laabtay si uu u quraacdo, waxa uu arkay gurigooda oo dad badan ku shumuumsan yihiin. waxa uu niyadda iska yiri allow umuraha saar, sidaan u jeedo guriga waxba ku soo kordhay. waxa uu soo jeeday dadkii badnaa ee tubnaa bannaanka guriga. waxa uu ishiisu qabatay hooyadiis oo ku barooranaysa alla hoogayo ba'yay. Cabdille ilin ayaa indhihiisa buuxisay, laakiinse hooyadiis Cibaado ayaa indhihiidu hal mar isku dhiceen. Cibaado intii ay soo booday bay tiri runay ragga kama naxiso ee aabaha Allah u naxariisto. intii hore riyo ayay laahayd Cabdille, laakiinse hadalkii hooyadii sidii huban iyo hilaac roobaad ayuu hurdadii ka toosiyey. wax yar oo hinna kadibna Cabdille waa aamusay. waxaa loo sheegay in reer hebel ay dileen aabihiis. sidii dhaqanku ahaana waxaa loo yeeray wadaadkii si loo mayro loona kafno meydka. markii la mayray meydka waxaa lagu riday naxashka si loogu soo tukado salaada janaasada. wax yar kadibna waxaa la maqlay aadaankii salaada duhur. sidii baana naxashka loogu qaaday masaajidka si loogu soo tukado salaada duhur kadib janaasada. janaasada waxaa ka soo qayb galay dad aad u badan, waxaana indhahooda laga dheehan karay caloolgubyada iyo guulimaadka aadka u mugaweyn. salaadii kadib meydkii waxaa loo qaaday dhanka xabaalaha si loogu soo aaso. inkastoo meydkii la aasay, haddana bulshada xaafadda ku nool marnaba kama aysan bixin tiiraanyada aan dhammaadka lahayn. Cabdille waxa uu ahaa madi, mana lahayn walaal, wiil iyo gabar toona. dhimashada aabihiis kadibna waxaa la filayey in ehelkiisu ay taakulayn doonaan, laakiinse taasi ma dhicin. maadaama aabihiis loo dilay aana qabiil, tolkiisu waxa uu ka qaatay diyo reerkii dilay aabihiis. diyadiina waxaa qaybsaday qabiilka. wax aan dhammayn 5 halaad ayaana ku soo aaday qoyska Cabdille. 5tii halaad waxaa gacanta u gashay adeerkiis. Cabdillena kun jeexjeexan jeebkiisa kama soo gelin. hooyadiis waxa ay go'aansatay inay aado reerahooda maadaama uu dumaali diiday ninkii lahaa dumaasheeda. Cabdillena waxa watay hooyadiis, waxayna aadeen reerka hooyadiis oo deganaa magaalada. reerka ay ka soo jeedo hooyadiis waxay ahaayeen sabool, aan helin 3 waqti cunno ku filan. Cabdille waxa uu ka haray dugsigii, waxuuna noqday baalash leh si uu caawiyo hooyadiis. maadaama uu ahaa wiil da'yara, haddana taasi ay u dheer tahay nolol adag oo ka dhigtay muuqaalkiisa sida geedka qasabka oo kale. waxa uu mar walba gardaamo kala kulmi jiray dadka uu kabaha u baalasho. baalashlayaasha kale looma ogolayn inuu galo meelaha dadka iyo ilbaxaya ay ku kulmaan sida hoteelada, baararka iyo wixii la mid ah. waxaa intaasi dheereed dadka haysta shaqooyinka ama ku nool nolosha dabaqada sare kama baalashtaan kabaha, iska daaya wayba yasaan, mana uu ogola inuu suwaag istaago. Cabdille aad buu uga xumaaday dhaqankaasi qalafsan ee dadka ilbaxaya ay kula kacaan. waxa uu isweydiiyey sidee u dhici kartaa in dadka reer baadiyaha ah iyo kuwa danyarta ay ka xurmaya xishood badan yihiin dadka ilbaxa ah. waxaa u soo baxday in ilbaxnimada iyo dhaqanku aysan wada socon, oo aad noqon kartid macallin dhiga maadada tarbiyada haddana edab daran, sidoo kalena aad noqon kartid wadaad haddana aan weyse qaadan. maskaxda Cabdille waxaa ka guuxayay intii muddo ah iska horimaadkan ka muuqda bulshada. waxa uu yidhi haddii aanan ku dhex kori lahayn bulshadan oo hal mar anoo weyn ka soo bixi lahaa, ilaa hadda ma miir qabi lahaa. Cabdille su'aashaas madaxiisa waashay, ma uusan helin cid uga jawaabta iyo cid uu wax ka weydiiyo toona. qofkii ugu aqoonta roonaana reerka waxay ahayd hooyadiis. marka uu weydiiyeyna isqabanwaaga bulshada haysta, waxa ay u sheegtay wax cusub ma aha wiilkaygiyo, waxaad arkayso muddo aan dhowaanahaynba waxbaa ka qaldan dadkeenna. waxay masaajid xaafadda u dhow iska barteen nin oday ah, kaasi oo Cabdille u muujiyey dabacsanaan uusan ku arki jirin dadka kale ee magaalada. Cabdille waxa uu soo xasuustay dhimashadii aabihiis, waxa uuna galay xaalad murugo leh. hase yeeshee odayga ay isbarteen waxa uu ku ballameen inay maalin walba salaada casir kadib kulmaan. Cabdille waxa uu ka qayb galay inuu kulankaasi waxa uu aqbalay in ay kulankaasi qaataan maadaama xilligaas uu ka soo laaban jiray baalashka. waxa uu heli karay waqti uu kula sheekaysto odayga. maalinkii xigtana
cabdille galabdheer ayuu ka soo carraabay magaalada si uu wakhtiga ballanta u ilaaliyo. wahaag saaxiibayaal, intaasina waxaa ku eg qaybtii koowaad ee sheekada. haddaba qaybta xigta intaa kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.